magacaygu waa Cali Cabdi Maxamed waa afayeenka xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka degmada Balanbale sida uu waayahan waxa jiray dhismihii golaha deegaanka ee degmada Balanbale oo muddo badan ba qaban qaabadiisa iyo dhistaankiisu ka soo degmada Balanbale oo markii ugu dambeysay ay ku guuleysatay wasaaraddu soona xushay sida habraaca iyadoo marasa 22 xubnood ee laga rabay golaha deegaanka degmada Balanbale sidoo maalmahanba waxa jiray in ay jireen isqaqabsi wasaaradda iyo wasiirada kale oo madaxweyne ku-xigeenka ama wasiir ku-xigeenka Galmudug waraaqo fara badan oo markii golaha deegaanka la dhisay xubnihii la soo saaray la dhaariyay ka soo baxay ka imaanay feedback ka imaanay Galmudug taas oo dadka Balanbale iyo shacabka u arkeen mid lagu carqaladeynayay golaha deegaanka degmada Balanbale laguna niyad jabinayay taas oo ay u arkeen in beelaha golaha deegaanka Balanbale oo ka kooban ilaa 18 beelood oo degan degmada Balanbale kuwaas oo soo maray habraac ayaa waxay u arkeen in golaha deegaanka yahanka u qabeen kan niyad jabay runtii waxaan leeyahay shacabka degmada Balanbale waxaan leeyahay kan niyad jabina golaha deegaanka Balanbale waa la soo saaray waa sharci waxay mareen habraac waxa ku baxay qarashaad oo hay'adihii internationalka ama local jooga dibadda ka riixayeen process dheer oo soo maray waxa xoogtiin muddo badan oo hal sano iyo bar gaaraysa barnaamijkaasi soo taxana hadba heer uu soo maray markii dambe lagu guuleystay hadda waxa kaliya oo dhiman uu yahay gudoomiye iyo ku-xigeen حتى دارتي المريي مداس واتاس طلبات وحنا سيب دراعة معمولك قلمدو أو معمولك عنو عن وحكي سني دقمة بلان قال لوجت هاجر سنيهاي إن والبدل كرا ولا سمين كرا وسيردو إسكشاندين ولو سميا وسير كحلو ولا قاعد كرا كي ما دو كنا وحنقولنا وبسيدا صماد وحبراء وحكوا قبسة مدة كسو كذا لكن وحنا سيب دراعة مدحوينك حجينك قلمدو هي مدحوين قرقر oo runtii shacabka aad u taageersan aanu nahay inay qayb ka noqdaan waxyaabaha lagu carqaladeynayo horumarka iyo mustaqbalka iyo ayaha degmadan oo runtii ahayd degmo horay ugu jirtay blacklist oo ay geliyeen siyaasiyiin iyo international community iyo dad shakhsiyaad runtii waxaad ogtiin degmada Gaalkacyo oo xarunta gobolka Mudug in golad deegaan oo kan ka horeeyay muddo 2 bilood lagu dhisay inuu socdo 6 bilood waxa hadlayay beelo fara badan oo Galmudug ka soo jeeda ilaa 7 bilood iyo 10 bilood ku beelo gaaray ayaa aad u cambaariyay ama awood qaybsiga ka qaydiyay wax carqalada oo Galmudug ama ay ku sameysay ama joojin ama faragelin ama dhibaateyn oo ay ku sameysay ma jirto raali bay ka ahayd Balanbale runtii dad siyaasiyiin oo xamar qaarkood joogo qaarna dhuusamareeb joogan qaarna deegaano kala joogan ayaa dana ay ka leeyihiin anigu ma garan karo laakiin u campaign gareynayay sidii Balanbale loo joojin lahaa taas waxaan filayaa shacabka degmada Balanbale mid niyad jabinaysa maaha haddana waxaan ka codsanayaa maamulka Galmudug runtii mustaqbalka Balanbale inay qayb weyn ka qaataan aysan u keenin flexible iyo burburin runtiina maanta ay hirgeliyaan dhalinyaro badan oo aqoon-yahano oo la soo xulay oo maanta dadkoodu ay mid walba soo xuleen habraaci soo maray aqoontooda lagu soo xulay doorasho soo galay u dhinayd kaliya inay gudoonkooda bartaan deegaanadooda u shaqeeyaan kitaab lagu mariyay runtii in meel hadda in la simo deegaano cadaado ama dhuusamareeb ama caawdaq oo aan wax laga dhisay iyo wax bilow ah oo golad deegaan oo laga bilaabay oo processkiisa ama ay daafurteen in iyo Balanbale oo dhameystiranta in isku mid laga dhigo taas waxaan u arkaa arrin cadowtimo arrin dadka Balanbale aysan qaadan karin arrin annaga mustaqbal ahaan iyo dhalinyaro ahaan iyo xildhibaanadan la soo xulay aan anfacay marka sidaas baan sidiido arrintaas ku weyn xildhibaan waa soo baxdeen adinka ka maamul ahaan maadaama ku ilaahay ka xubnood leedin dhaariyay baarlamaan saxnatiin maxaan ka qorshaysan degmada hadda
sidoo annaga wasaaradii iyo tiimkeedii annagana dhisay waa joogan annaguna xildhibaanada soo baxana runtii sharciyan baan ku soo baxnay waxa nooga qorshaysan horta waxaan ilaalinaynaa constitutionka dalka u yaala waa ilaalinaa lambar 1 waa midkan ku dhaaranay hadii constitutionkaas aanu arki weyno madaxda naga sareysa inay ku qancin weydo waxa nooga qorshaysan waa plan B way insha Allah waana shacabka degmada Balanbalena waa naga arki doonaan waa naga sugi doonaan maxaad ka leedahay hadda wasiirkii iyo xalay xilka waa laga qaaday wasiirka xankiiba hawshiisii wada ma wax doorasho hadda qabsoomayso adinka aanida qorshaysan baa jira sidoo arintaas waa la isku haystaa wasiirka arrimaha gudaha markii constitutionka dalka u yaala ama sharciyaadka u yaala waxa leeyahay wasiirka xilka qaadistiisa waxa weeye dadka qaar siyaasiyiinta inaysan sharci ahayn baa la sheegaya waayo wasiirka waxa xilka qaadi kara madaxweynaha hadii se uu wadanka maqan yahay oo Soomaaliya joogay ama dalka jiro madaxweyne ku xigeenku ku siman noqon kara xilka ka qaadi kara laakiin wasiirkii oo ku siman dalka oo muxuu ahaay caasimadii dalka jooga oo hawl ku jira in la dhaho muxuu ahaay wasiir madaxweyne ku xigeenka ka qaaday taas waxaan arkaa shaqo xumo laakiin wasiir madaxweyne ku xigeenku wasiirka shaqadu ka joojin kara